يا رمضان سلام مرحب، شعب المسلمين رحب، منتظرين بنترهب، زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا لقاء مباركا طيبا. waxaynu kusoo jirnay qofkii xanuunsanayay, waxaa inoo dambeeyey qofkii intuu xanuunsaday xanuunkii ilaahay ka caafiyey, jaanisna aanu helin uu kusoo qalleeyo oo markaa uu xanuunkii ka yara bogsaday, haddana ilaahay subxaanahu watacaala geeridii u keenay uu saa ku dhintay. qofkaasi fursad ma helin soontii uu kusoo qalleeyo, fursad ma helin uu soontii ku soomo qallaha ahayd. ilaahay baa ajashiisii subxaanahu watacaala u timid, sidaa awgeed qofkaasi lagana soomi maayo, cuntana laga bixin maayo. qofkii isagu jaanis u helay intuu xanuunsaday ladnaaday, soontii inuu soo qalleeyan laga doonayay, fursaddii laakiin aan ka faa'iidaysan, jaanisna helay aanu soo qallaynin, hadduu sidaa ku dhinto maalin kasta maalmihii u afuray tiradoodii haddii la hayo waxaa laga bixinayaa kiilo bariis ah, waa laga bixinayaa kiilo bariisa laga bixinaya. allahu mustacaan. allah subxaanahu watacaala wuxuu sheegay qur-aanka qofkii aan soonka kari karaynin inuu icaam bixiyo, acaam miskiin inuu bixiyo oo cid quudiyo, laakiin ilaahay ma xadidin miisaanka la bixinayo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam sakaatulfitrigu isagu inoo sheegay acaam miskiin ha la bixiyo. fuqahadu marka waxay leeyihiin 2 kiilo iyo badh, qaar waxay leeyihiin kiilo, qaar waxay leeyihiin nus kiilo iyo xoogaa. sida aad marka moodin dhexdhexaadka tahay, kiilogaasaa fiican qofka in bixi la yidhaahdo. haddii cid ehelkiisa ah ay ka soontana way fiicantah. oo rasuulku wuxu sal alay wasalam, man kaana calayhi siyaam saama canhu waliyuh, aw man maata calayhi. xadiis kale wuxuu ahaa, man maata calayhi siyaam, qofkii dhintay isagoo soom lagu leeyahay, saama canhu waliyuhu, weligiisa xigtadiisa ayaa ka soomaya. qofka ama saaxiibkii ama qaraabadiisa ama ehelkiisa ayaa ka soomaysa. qofkii isagu intuu soomo, soonkii uu soomay ay sababayso inuu miyir beelo, way iska afuraya, wuuna soo qallaynayaa. hadduu xamili waayo xanuun ku kaco ama uu si u dawaqo siriro, wuu iska afurayaa, buu soo qadaynaya maalintaas. haddii qofkii isagoo sooman uu maalintii suuxo ama uu miyir beelo, ramadaantii maalinta inteedii badnaydna uu miyir la-yahay, dabeetana uu soo miiraabo miyirsado oo ilaahay ku soo celiya miyirkiisii qoraxdu intaanay dhicin wax yar ka hor, qabla quruubi qaliilin, ilaahay subxaanahu watacaala soomkiisii waa saxiix, maadaama uu waa bariistay isagoo sooman oo niyad soon xalay ku seexday. haddii laakiin qofkii uu miyir beelo laga bilaabo fajarka ilaa iyo qoraxdu intay ka dhacayso maqribka laga tukanayo, jamhuur alfuqahaa'i waxay leeyihiin soonkiisu ma ansaxayo, waayo qofka kani wacyi ma lahayn maalintii ramadaanta oo dhan. maalinimadaasi miyirkiisa iyo garashadiisu meesha way ka maqnayd. sidaa awgeed marka uu soo qadaynayaa cinda aljamhuur ayay leeyihiin. waxaa waajib ku ah bay leeyihiin qofkii isagu miyir doorsoomay kooma galay inuu soo qadayo cinda aljamhuur, muddaduba ha dheeraato haddii la doono. laakiin bacd alculamaa waxay u arkayaan qofka isagu kooma gala, koomadaasina muddo dheer aanay ahayn, oo maalan 2 maalmood, maalin, 3 cisho, 4 cisho oo kale qaybuuba ku jira qofkaasi. waxay leeyihiin wixii intaa ka dheer, 4 cisho wixii ka badan, qaybuubada qofka uu galay iyo koomaha uu ku jiro wuxuu noqonayaa qof aan mukallaf ahayn. sidaa awgeed qadaba lagama rabo wixii 4 cisho ka badan. waxay leeyihiin culimada qaarkood qofku haddii ay gaajo adagi qabato isagoo sooman ama haraad aada u adag uu qabto,
uu soontii la xamili kari waayo is yiraahdo naftu waa kaa baxaysaa ama waad indhabeelaysaaba ama waad dhagabeelaysaa haraadka gaajada ku haya uu is yiraahdo oo de malihiisa qaalibka ah uu sidaa dareemo wax ismoodsiis iyo aan ahayn waa afuraya wuuna soo qadaynaya. dadka shaqooyinka adag ka shaqeeya ee meelaha saxaraha aadka u kulul ee saxarada carbeed oo kale ka shaqeeya ama meelaha kale aadka u kulul ama warshadaha iyo shaqooyinka adag ka shaqeynaya qofka arintaasi ay dhibayso soontiisii wax yeelaynayso hadday u suuragal tahay shaqataa ka sahlan inuu doonto si cibaadadiisa iyo adduunkiisa uu isugu cilcishado ayaa u fiican. haddii kale laakiin naftiisa uu uga boqo dhibaato xeel dheer inay soo gaadho maalin ramadaan waxaa u bannaan inuu iska afuro markii uu dee dhibaatadii uu ka baqayay uu ka afurayna inuu iska afaysta iska fiicanoo mar haddii aan xaaladii kusoo kordhin jawigiisu caadi noqday ha iska afaysto maalinta inta hadhay hana soo qadeeyo si asturanna markaa dee afurkiisii ha ka dhigo ayaa laga raba qofkaasi. qofkii isagu laakiin aan dhibaata shaqadii uu ka shaqeynaya aanay ka soo gaaraynin ha iska haraado ha iska yara daalo ha dhibaatoodo laakiin aanay wax saa'ida oo xaalad ka baxa aanay ahayn inuu soontiisii wato oo u samro ayaa fiican. qofkii mujaahidka ahaa ee jihaad fii sabiililaahi baynu ka hadlaynaa ee ku jiray haddii uu markaa isu qabanqaabinayo gelayo waxaa la rabaa inuu afuro. waxaa u bannaan inuu afuro si ugu xoogaysto hawshan culus ee geli doono. haddii iyada oo uu ku dhex jiro hawshii jihaadkana sidaas si lamid ah uu u baahdo wuu afuri karaa wayna u bannaan tahay iyaduna way u bannaantay. cudurka daa'imka ee qofka haya taasi waa cuduradii qofka ku imanayay bogsashada laga rajo qabay. cudurka dadka sooman ku imanaya ee cudurdaarka ah ee soonkoodii saamaynta ku yeelanaya ee saameynaya waan ka hadli doonaa qodobkan ka hadlayna waxaa ka mid ah fidyada iyo anwaacdeeda iyadana waan ka hadli doonaa. qofku uu bixinayo miqdaarku bixinayo qofkii isagu garashadiisu yaraatay oo tamyiiskiisii iyo wax kala soocidiisii intuu yaraaday xad kharaf ah gaaray oo soontiiba aan saax u xamili karaynin. qofka isagu sababta u afuray ay tahay sabab daahir ah oo muuqata sida xanuun haya oo de ka muuqanaysa isaga xaalkiisu wuxuu noqonaya xukunkiisu. qof isagu maalin ramadaan sooman dhintay xaalkiisu wuxuu isna noqonaya. cudurka qofka ku imanaya ee soonta u diidaya ee daa'imka haysta qofka kani noocyo dhowr noqonaya. waxaa ka mid ah xanuun joogto ah oo qofkan haya oo aanu qofka kani u soomi karaynin oo soomkii u diidayo isla markaana aan la rajaynaynin inuu ka bogsado sida malaha qaalibka ah. ilaahay baa qofka caafimaadkiisa gacanta ku hayee dhakhaatiirta aqoonta baaca dheer u leh ay caddeeyeen iyo tajaarubtooda. qodobka labaad qofku in gabow ku yimaado iyo da taasoo markaa keenta in qofku awooddiisiiba ay tagto. caqli ahaan waa joogaa laakiin tamari ma jirto sariirtaasuu ku ururo saaran yahay ama maalinna waa jiifaa maalinna waa soo kacayaayo xaaladiisu wuxuu ku socdaa dhulyaal inuu noqdo waa gaboobay. qofkaasi oo maalin kasta nusqaan baa kusoo kordhaysa. sidoo kale islaantii da'da weyneyd iyaduna aan soonti xamili karin acdaartaas oo dhan qofka waxay u banaynaysaa iyo cudurdaaradaasi inuu iska afuro. inuu soo qaldayna waajib ku noqon mayse ee wuxuu bixinayaa fidyo. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي وعلى الذين لا يطيقونه كوا أنكرين صومك آيات ابن عباس وحورنشري منسوخة معها لما نسخين كوا صون تكرين وحواجب كوا إن إيمان تا رمضان تا أي فران وعيد قوضيان ابن عباس وحولي آيات منسوخة معها وهي لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وإسلانتي وينيد داء ويناتي وضيقي داء ويناء أن أود لهين لبضوا إني صومان مالين كاستقف مسكينا يقودين يانو كيلو بريسة إسكبحينيا كيلو بريسة أي إسكبحينيا حكى لو بنان قفكو إنو بشهر رمضان مالين تقدم بيسا
soddon miskiin oo casho u sameeya sida xadiidkii daara qudni anas ibnu maalik sanadii u dambeysay noloshiisa uu sameeyey oo kale. waxaa u bannaan maalin kasta inuu bixiyo, waxaa u bannaan inuu qadimo mar iska wada bixiyo, waxaa u bannaan inuu raashin u bixiyo. intaasoo dhan way bannaan tahay. waxaana fiican qofku inuu qaraabada siiyo oo haddii qaraabadu ay baahan tahay 2 ajar buu ka helayaa, ajar qaraabo xiriirin iyo ajar sadaqanimo ayuu ka helayaa qofku. cid ururisa sakawaadka iyo sadaqaadka oo lagu kalsoon yahayna waa u dhiibi karaa soomkaas fidyadiisa, iyaduna waa u bannaan tahay si dadka kale ugu qaybiyaan. laakiin ma bannaana in qofku lacag uu bixiyo oo lacagtaa markaa la siiyo qofkii miskiinka ahaa, uma bannaana. qofkii dibadda jiray lacag waa soo diri karaa, dabeetana waxaa laazima ka lagu soo diray inuu raashin ku iibiyo, raashin ahaan uu ku bixiyo. waayo ilaahay wuxuu yidhi fidyatu طacaam miskiin, fidya طacaam miskiin ah waa fidyada qofka miskiinka ah ee miskiinka baahan la siinayo. intaan darsiga xalqada labaadna ku dayno, astawdicukum allah, wasalaamu calaykum. منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، صلاة تراويح نلينا شعار، ونلقى البركة في الأسحار.